السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا سعد قالية دالية من ميل والبوجوكتان إلى يدن كمان سؤالك نصبك لا ولا شيء سير ما سير صومالي مركزية مقال صب سوري دو أصحاب قالية هذا وانس كلنا سرير ناس كعواي فيديو صوتوا إن شاء الله ما نروح حفظينا إذا لسوا ذاكو قصة هو وضطو ستريس كذي محل لايس بوقه لكن لا باس وادوق wax kasta la arkaa Soomaha marka hadaan nigo cusub tahay channelka subscribe saar video-ga like saar si share kare sabta la wada gambalaalka furo naga soo fiiro sayna Soomaaliya agteeda wax badan ayaad ka istifiyo doontaan insha Allah saabta qaaliga inta iga xiran iyo inta iga soo birtin waan mahadcelinaya anta kadib gabar ayaa waxay soo dhiibtay qisadaas oo horey u dhacday ilaa hadana si taagan xaaladeeda wali way jirtaa qisadaas marka waxay leedahay gabadhaas ila tali walaal hasi ahaatee aniga horta taladeeda dib hadaan u dhigo waxay dhahday Zainab Soomaali waxaan rabaa talo asxaabtaada ii dhex dhig taladan inkastoo waxay dhahday hogaan way taabatay inkastoo kulaha adi asaab badan kugu xirneen أصعب إيمانا دور صاحبي لكن أنت وحنا كوفر إن شاء الله تصايان دهيا أنت أكيد بصحابي هذا نسيب ذكر نو برنامج كينا جوادان قصة وحيهات سيدتان كو أرتو حيد هذا وحنا هاي برسومانيا لا وحنا هاي حاس وحنا ليه لا بعبور وحنا هاي قف أو عدة سبولة sabol ayaan ku dhashay gabadhaas waxay ka nooshahay sida ay sheegtay wadanka Sacuudi Arabiya Sacuudi waa naga badbatay misdaadan maalmaha Sacuudi maxaa Sacuudi leeyahay asxaabta kale Sacuudi leeyahay dadka taqaana malayna intaas waa iska kaftan marka gabadhaas waxay leedahay waxaan ii sheeg adiga deganahay wadanka Sacuudi Arabiya waxaan haystaa laba gabdhood waxaan jira 25 sano okay أنت كدب قصة كلا أي سيجود كشيء وحيد هذا مركان جورسنا نيكي وحاسو جورسنا تشايل يو ما شاء الله كرسوني كالجعل بلا شروط وحاسو صوص إحنا بيد هذا جوداري بلا شروط أيام جورسنا لكن الكي وانو شيء الحمد لله الماء قرح بدن أيا إلهي نقدر السجى مركان جورسنا وإحنا ما هسنن لكن هذا أصلاً هذا وكلا كعذي ما شاء الله تبارك الله وشقيا وهو هيستا محل شركة وطنك قاري وهيستا وشقيا شركة نوب شقيا ما شاء الله مركي لوسنا إسقامنايب جو جاس نولا شاذ فيهم أيام قرني أنا صدوقنا شركة أيام marka maadaama aan ka dhashay cid faqri ah waxaan keenay dhaxday walaasheeda oo iga weyn ayaan keenay walaasheeda waxay iga weyn tahay 3 sano waxayna leedahay nina qabo caruuray leedahay waa gabar xaas ah marka maadaama ciidayna dad taruufaysan anaga aan iska nahay waxaan ugu talagalay walaasheeda waxaan u keenay inaan isla caawino cid iyadana ilmaheeda wax u qabsato laakiin balse se aniga u fikirayo waxa uma dhicin waashay markay imaatay bil markii la joogay maalmo horta markii la joogay aniga asxaab badan ayaan lahaa socodkayga waa iska badnaa ninkaygana uu shaqeynay gurigii ilmihii ee wax walba ayada ayaan ku aaminay aan guriga ugu tagay marka mar walba isku soo maartay mararka qaarkooda asxaabtayda meel aaday mararka qaarkoodana waxaan gadaayay bahasha la dhahayahay weerarina dhar iyo uunsi iyo qashan gabdhaha ay soo dalbanaa u geyn jireen marmarna suuqa wax la soo jibi ka raadin jiray oo soo qaadi jiray intaas dhan waxaan raadinayay maadaama aniga gabaran ahay waana guursaday murtaahan waan ku noolay cideeda saan wax ugu tari lahaa ayaan orodkaas ugu jiray ayay leedahay gabadhan marka walaashay markay imaatay oo gurigana aan naftirkayga oo leer ayaa ay soo gashay sida maartay kalyaantayga wax ugu geysan karo ee wax u soo qaadan karo wax u raadsan karo ayaa jaaniskeeda helay bil markay joogtay wax badan ayaa isbedelay waxaan arkay ninkayga dhowr mar oo soo shaqada ka soo noqonayo uu leeyahay maxaa la dhahay isaga habaan ilaaway marka anigu guriga aan soo noqo isaga oo guriga jooga ayaa mararka qaarkood imaada
mararka qaarna wuxuu leeyahay maxaa la dhahay shaqada maanta waa la isoo fasaxay marba waxbuu sheegaa marka tii anoo la yaaban iidana waxaan ka arkay ogo yani isbedel markii ninkan joogo sibay habi u tahay mala sheekaysato gabdhaha dariska masada dadkii kale mar walba hindhaheeda halkaan ay u jeedaan korweeda wada hindhaa la dhahay aniga shaki ayaa igalay dhahday maadaama shaki igalayna waa ku dhiirin waayo walaashayda inaan aniga ka shaki ilaa heerkaas oo idab darada maadaama xataa iyada la qabo marka waxay dhahday inaan maaragtay tartiib u fiiriyo tartiib u eego kolle wixii shaydaankan iyo buunbuuniyeyba sheekadii dhab ayay noqotay dhahday markii shakigayga sii weynaaday mar walbana maaragtay ilmihiina waa ilmo yaryar oo ilmo hadlayo wax weel sheegaya ma ahan marka waxaan rabay damcay inaan shakigii aan iska bixiyo waxaan sameeyay dhahday telefoonkayga intaan soo qaaday walaashay iyadoo guriga joog ninkaygan asoo guriga jooga ayaan video recording intaan u geeyey sariirta hoosteeda ku tuuray dhahday anigana waan baxay qof banaanka wax kasoo iibsanay amal ayaan iska dhigay kadib waxay dhahday markaan soo noqday oo wax yaro adiga nus saac amalaan soo noqday telefoonkii baasi oo sarbeebe usoo qabsaday kadibna waqtigii aan jaanis u helay ayaan telefoonkii furay dhahday habiibi xayaati ka baxay waad yaabaysa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun adduunkan wax kasta waa la arkaya marka madaxa ay xanuunay bay dhahday stress depression wax kasta udur kastaba markaas waan u nuglaaday dhahday waayo dee meel aan ka bilaabano sheekadii waan waayay kadibna arrintii waan u adkaysan waayey dareenkeygana waa laga dareemaya ayaga hataa dareemay inaan maaragtay aniga wax dareemay oo shakiyey ayagana way u caddaatay asagii wuxuu bilaabay horta maalintii walaashay saaxiib la noqday ilaa maalintii kaleba wuxuu bilaabay bay tiri weji bedel maaragtay heshmad la-aan iyo waxyaabo badanaan ku arkay tii anigoo bala yaabanaayay dhahday marka haddii oo kiiskan aniga isku waalay sheekadan aan ogaaday labadooda uma soo bandhiginay dhahday weli heshmada igu jirtay dhahday laakiin heshmad dhimatay sharaf dhamaatay marka walaashay markaan wejigeyga ay dareentay waaba iga tagtay dhahday waxay aaday gabdho kale maalmo ay isku barteen oo aniga aan baray kuwaas ayaa ay la degtay kuwaas lasii degaan dhahay aweelowna waan isdagaalnay shirkadiis ayuu maaragtay meel ka seexanay marka arrintii maxaa la dhahay siga aniga waa u adkaysan waayey ninkii codkii ayaan dhageystay telefoonkaygan waan ka qaatay bay dhahday dhageysaan dhahay markuu dhageystayna inuu maaragtay telefoon qasab iga qaato ayuu damacay laakiin way dhici weysay dhahday meel oo dariishe ah oo balkoon iyo storyal u dhehaysa telefoonkeyga ku tuurtay furahaygan markii hore wuu ii qarsanay barnaamijkan wuu ii degsanayay dhahday taasaa uga badbaaday telefoonkii codkii iyo wixii way igu jiraan gabadhiina wayba iga tagtay xaafad kale degtay asagan markii saas sheekadan barkamale ay noqotay wuu guuray shirkadii ayuu meel ka degay marka aniga iyo welwel iyo stress iyo labadeeda caruur ayaa isku soo hareen wax iiga daranay dhahday ninka haddaan iska furo nin waan helaa bay tiri walaashayda wayba iga dhimatay bilkuliyanba way iga dhimatay dhahday haddana waxaa kala kasii damo ilmihii aniga habaryartu ahay hooyadooda aan kasoo kaxeeyay oo aniga aan keenay bay dhahday wadankii saan familkeen wax iskula qabano ayaa haddaan u sheego ninkeeda iyo caruurtii haddana mashaakil kale ayaa meeshii ka abuurma ani kolley kuwan way dhaafeen iyada niyad uma hayo dhahday asigana niyad uma hayo qabitaan meesha maba jiro inkastoo aan ku haynin in uu gobol dhaaf la sameeyay laakiin hadalkii aan dhageystay ayaa igu filnaaday shaydaan iyo buunbuuniyey aadana ugu xumaaday maalintaas ilaa hadda waxaan ku noolahay uqdud nafsi ayaa igu dhacday bay tiri walaashay waxaan u kiraahaystay sidii eegi amal ayaan u nacay nina haba sheeginay dhahday mabku tashnaayo marka dhibkaas ayaa igu dhacay markuu dadka walaalahayga waxaan ka codsanayaa ma istaahila ninkaas in loo noqdo ama nolol damba lala wadaago inkastoo isagaba had inkirooyo waxaas waa wax iska kaftanay ahaayeen waxaas waa wax iska fadulay ahaayeen haddana maxaa la dhahayse waxaan diyaar u ahay inaan reerkayga dhaqdo inaan maaragtay ilmahaada ii haysad ilmo kale aan kusii daro ayaan diyaar u ahay gabadhaas waxay ida afka ila soo gashay danna kamalihi
mana suuragalna ma ahan inaan walaashaada maaragtay gogol dhaaf aan ka sameeyo maadaama iidaba la qabo ayuu iga madadaalinaya laakiin aniga sheekadaas ima marayso midda iga dara marka aan idinkala tashanayo ninkaas ma u noqon lahayd adiga haddaad tahay ninkaas reer ma u dhaqi lahayd Soomaaliyeed marka taas waa qodobka labaad seeb ugu sheega familkeyga iyo ninkii kaloo dumaashigeyga xishmada iga mudnaay oo intaasoo mar gurigiis aan seexin jiray oo aan joogi jiray oo maadaama walaasheeda iga weyneed hataa gurigeeda qaar nolosheeda ka mid aan kasoo qaatay oo weligiisna hadal xumo i dhihin hadalkaas u sheego maxaa dhici doono reerkaas ma qariya hadalkaas mas waa sheegaa wixii ka dhacay xa ka dhaceen ilmihii habaryartu ahay fidna ayay meesha ka galayso hadda hooyadooda way ka kalsoon yihiin aabahoodana wuu nabad qabaa bal haddii arrintan macquul tahay inaan sheego oo shaaciyo u sheega ninka jumaashigeyga iidana saa aniga nin la-aan ugu dhacdo ma suuragalba maxaa sameyn lahaydin Soomaaliyeed midda kale intaas waxaa iga daran ay leedahay gabadhan intaas waxaa iga daran ay dhahday gabadhaas sharafteeda iyo sharaftii tolkayga iyo sharaftii karaamada familkeyga ayaa halkaas ka bixayso haddaan sheego haddaan qariyin welwel iyo stress ayaan noolahay marka gabadhaas waxay leedahay Soomaaliyeed ila taliya sida ugu macquulsan oo aniga aan ugu bixi lahay waayo stress igama baxayo haddii sheekadan ka aamuso wiligeyga san ayaan u fikiraya laakiin inaan meel iska saar ayaan jecelahay balse idan la tahay idinka gabadhaas saas ayay leedahay marka sheekadaas ayaan idin wadaa ani ahaanteeda waxaan dhihi lahaa horta wallahi haddaa hadisid waa afsalaha ku dhig haddii kalena ariga leenta ugu dayn waayo dee sheeko laga aamusi karana ma ahan sheeko haddii la sheegan waa fashil waa ceeb oo sumcad xumo familkeeda iyo usoo hooyinaysa maaragtay maxaa la dhahay sareerkii marka ani wallahi tan waxaan ka dhihi karaa naftirkeyga ila talida amalan qaba laakiin waxaan dhihi lahaa aniga wixii dhacay way dhaceen ha u sheegin maxaa la dhahay dumaashiga laakiin ha ku kalsoonaanin walaasha kadib kayna kula dhalanin ninkana iskaba ilow inkastoo nin yahay oo saqajaan yahay maanta hadduu filinkaas bilaabo filinkaasi kulula ayuu bilaabaya gabar yaraa tahay maadaama 25 jir aad tahay hortaada u soco ayaan dhihi lahay ay helayna meesheeda ha ku nusnaato laakiin familka haddii maaragtay familkaaga la dhahay iyo ninkeeda iyo aruurteeda waxaas ka qari oo ha u sheegin adigana ka aamus ayagana go-aan ka qaado aan Zainab Soomaali taladeed taas waa idinkan waxay tala gabadhaas siinaysin soo sheeg waxaan leeyahay assalaamu calaykum leegta iga ilaabin dartiina wax ka ahay subscribe ka iga ilaabin wax kastana isi share gareeya aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinaya bye bye markale iyo next video assalamu calaykum